waa salaamantihiin dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed iyo dadweynaha Soomaaliyeed na daawanaya ama dhageysanaya. Waxaan halkan rabaa warbixin kooban inaan kula wadaago dadka Soomaaliyeed sida aad la socotaan maalmihii ugu dambeeyay waxa dadka Soomaaliyeed ay aad ula socdeen warar dacaayad ah oo ka dhan ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Injineer Maxamed Xuseen Rooble oo la faafiyay oo meelo kala duwan lagu faafiyay. waxaan doonaynaa haddaba xukuumad ahaan inaan dadka Soomaaliyeed u cadeyno in wararkaasi ay yihiin been iyo dacaayad aan sal iyo raad toona lahayn oo la soo agaasimay oo la soo abaabulay oo ay ka soo shaqeeyeen kooxo abaabulan. arrinta labaad ee rabno dadka Soomaaliyeed inaan la wadaagno waxay tahay sababta loo soo agaasimay arrintaas ee loo soo abaabulay inay tahay qorshe diyaarsan oo la rabo in lagu magac dilo ra'iisul wasaaraha dadka Soomaaliyeedna lagu niyajibiyo. sababta keentay arrintaasna waa arrin la xiriirta dadaalka uu ra'iisul wasaaruhu ugu jiro inuu hagaajiyo oo dariiq sax ah oo dadka Soomaaliyeed u cuntama uu ku socodsiiyo hanaanka doorashada ee mas'uulka looga dhigay. waa la socotaan hanaankaas marxaladihii uu soo maray waa la socdaan dadka Soomaaliyeed dagaalkii badnaa ee ra'iisul wasaaruhu ugu soo galay in doorashadu ay noqoto mid hufan muddadii sanadka iyo xoogaaga ahayd ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo xukuumaddiisu ay joogeen. waxaad ogtihiin hardankii adkaa ee loo soo galay in dalkan uu ka baaqsado dagaal in uu ka baaqsado dhibaato in doorashada ka dhacaysa dalkan ay noqoto mid dadka Soomaaliyeed dhaxal siisa wanaag. taasi waxay keentay markaa in dad tiro badan oo noocyo kala duwan ah ay dantooda ka arki waayaan isla markaana hadba marxaladda la joogaba ay isku dayaan in ay nooc jahawareerin ah sameeyaan. marka waxaan aaminsanahay dacaayadahaas maalmihii ugu dambeeyay socday runtii raqiiska ahaa ee xaqiiqada ka fogaa in ay ahaayeen ama arrimo la xiriira ay ahaayeen oo salka ay ku hayeen dadaalka uu ra'iisul wasaaruhu ugu jiro in dalkan ay ka dhacdo doorasho hufan oo hagaagsan oo u qalanta mustaqbalka iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. waxaa runtii nasiib darro ah in dacaayadahaas abaabulkooda loo adeegsaday saraakiil ciidan iyo sidoo kale qaar ka mid ah hay'adaha rayidka ah ee dawladda gacmahooda iyo xafiisyadooda loo isticmaalay in ra'iisul wasaaraha qaranka lagu jaa'ifeeyo iyada oo saraakiishaas ay labisan yihiin darajada qaranka uu lahaa taasoo runtii ah nasiib darro aad iyo aad u weyn. markii arrimahaas ay dhaceen ra'iisul wasaaruhu isaga oo runtii ilaalinaya duruufta waddanka uu ku jiro u turaya dadka Soomaaliyeed marxaladaha ay ku sugan yihiin waxa uu go'aansaday in isla dariiqa hay'adaha dawladda dhexdooda ah lagu saxo wixii xadgudub ah ee ka yimid dad dawladda Soomaaliyeed u shaqeeya ama saraakiil ciidan ha ahaadeen ama cid kale ha ahaadeen. waxaase runtii nasiib darro ah in gudiyadii la magacaabay oo hay'adaha dawladdu ay u magacaabeen arrimahaas gaar ahaan ciidamada in faragelin lagu sameeyay oo laga hor istaagay qaraaradii ay qaadan lahaayeen oo aan ognahay go'aamadii ay gaareen in la diiday oo dib loogu celiyay taasoo runtii muujinaysa heerka uu gaarsiisan yahay abaabulkaas iyo sida la doonayo in loogu jahawareeriyo ama loogu milo hay'adaha dawladda qaybo badan oo ka mid ah gaar ahaan ciidamada. haddaba ra'iisul wasaaruhu sidaad ogtihiin waa ra'iisul wasaarihii xukuumadda iyada mas'uuliyadda ka saaran tahay in ay daadihiso dalkan sida uu dastuurku qabo. sidaas daraaddeed waxaa lagu wargelinayaa dhammaan hay'adaha kala duwan ee dawladda hadday ahaan lahaayeen ciidamada iyo hadday ahaan lahaayeen kuwa rayidka ah in ay ka fogaadaan ku milmidda arrimaha siyaasadda isla markaana ay qabsadaan waajibkooda oo ay dadka Soomaaliyeed ugu adeegaan si waafaqsan waajibaadka uu dastuurku siiyey. waxaa lala socodsiinayaa cid kasta oo caadaysata ku noqnoqoshada falalka ka baxsan sharciga oo isku dayda in ay dana khaas ah ugu adeegto xafiisyada ay joogto in ay la kulmi doonto tilaabo anshaxeed iyo mid ciqaabeed oo ka jawaabaysa falalka ay ku kaceen. gabagabadii xukuumadda Soomaaliyeed waxay shacabka Soomaaliyeed la socodsiinaysaa in waddankani uu ku sugan yahay marxalad adag oo u baahan isku duubnaan oo u baahan midnimo oo u baahan badbaado in qaranka laga badbaadiyo. runtii waddanku wuxuu taagan yahay meel isgoysa oo u baahan geesinimo iyo dhiirasho looga gudbiyo dalka marxaladan adag. ma doonayso xukuumadda mana ogolaan karto in iyada oo joogta
tillaabooyin dhaca oo la qaado oo laga hortegi karo ay keenaan berri in dadka Soomaaliyeed ay isdilaan ay keenaan in berri dawladnimada Soomaaliyeed ee dhiigga badan iyo waqtiga badan lagu soo bixiyay ee muddada dheer la soo dhisayay ay si sahlan oo fudud oo dana shakhsi ah ku salaysan ay u burburto sidaas daraadeed waxaan weydiisanaynaa shacabka Soomaaliyeed in ay barbar istaagaan xukuumadda ku garab istaagaan in ay dalkan si cadaalad ah oo dawladnimada iyo ummadnimada iyo jiritaanka iyo midnimada iyo wadajirka iyo mustaqbalka wanaagsan u adeegaysa kana hufan danaha shakhsiga ah in ay u barbar istaagaan in xukuumaddu ay waajibkaas u gudato xalka kaliya ee dalkan uu leeyahay waa doorasho ku dhisan wixii lagu heshiiyey oo aan muxuu ahayn mid hadba sida la doono loo qalloociyo wax xukuumaddu ay ka shaqeynaysana waa intaas haddii uuna dalkaani dhibaato doorasho aadin oo aan hay'adaha dalka hogaamiya si sharci loogu kala wareegin waxay keenaysaa waxyeello iyo dhibaato aan laga soo waaqsan karin sidaas daraadeed dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay caqligiina iyo xooggiina iyo xoolihiina iyo maskaxdiina iyo taladiina isugu geeya in dalkan ay ka dhacdo doorasho isugu geeya in baarlamaanka dalkan qaybina ay soo baxdo qaybina uu dhimanta uu noqdo baarlamaan si hufan ku soo baxa madaxda qaranka ee dalkan hogaami doonta ay noqoto madax ku timaada tartan xalaala oo dadka Soomaaliyeed muxuu ay u siman yihiin oo ay wada og yihiin midaas ayaan xukuumaddu insha Allah taala ka shaqeynaysaa waxaan rajaynaynaa biidnillaahi kariim ka go'naanshaha ra'iisul wasaaraha ee ah in uusan ka leexanin dariiqa in dalkan ay ka dhacdo doorasho dadka Soomaaliyeed ay ogol yihiin oo ku salaysan wixii lagu heshiiyey in ay dalkan u horseedi doonto guul iyo xasilooni iyo barwaaqo in laga guuleysan doono kuwa ku hawlan dhagridda dadka Soomaaliyeed iyo dawladnimadooda insha Allah taala. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.